بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه والله waxaan rabaa inaan wax yar oo muhiim ah inaan idin wadaago waxaan rabaa inaan idin wadaagano wixii wax kala ma ahan waa xadiis yar oo aad iyo aad muhiim ah oo nabi sallallahu alayhi wasallam oo dadka muslimiinta oo aad u buuriyay inay isticmaalaan ama ay adeegsadaan حديث النبي صلى الله عليه وسلم حليها من صبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر حديث معنيه وحوايه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قفكي مركو صلاته كذب يراده سبحان الله صدني 3 جير والحمد لله يراده صدني 3 جير والله اكبر يراده صدني 3 جير انت مركي اسكو در اين تahay 99 جير مد بقولان او دغا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير النبي صلى الله عليه وسلم wuxuu dhahay qofkaas intaas boqolkaas kalimadood yiraahdo dambigiisa ilaahay uu dhaafa dambigiisa habal la ekada handarabaan badda xumbadeedo kale حديث aad iyo aad muhiim u ah qof kasto muslim inuu adeegsado ama uu aad iyo aad u baraarugana loo baahan yahay qof kasto muslina aan xadiidkaas aan ka warhayn ama aan aqoonin in la baro dadka muslimiinta dhamaantood xadiidkaas oo nabi sallallahu alayhi wasallam aad iyo aad u booriyay inay isticmaalaan qofkii isticmaalan oo adduunyo aakhiro oo liibaan ku heli doono insha Allah intaas rabay wallahi inaan ku baraarujiyo insha Allah ta'ala waxaan rajeynayaa inuu ilaahay nooga dhigo xadiiskan dadkii ku amal fala dhaqan geliyo insha Allah ta'ala adduunyo aakhirana liibaan ku helo إنه إلهي نجيله وكا أنت سيدك برارجنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.